ishuway kamartay intigeeni xoolaa waa doofinaysaa dhirtani qurxoonay duxulbaad ka shidateen dhulku yuu nabaad guurin لكن عانا ishuway kamartay intigeeni xoolaa waa doofinaysaa dhirtani qurxoonay duxulbaad ka shidateen dhulku yuu nabaad guurin waqay murtida ereyada ka soo baxaya heestani waxay ku dheehan tahay sidii bulshada miyi iyo magaalaba uga wada qayb qaadan lahaayeen sidii ay u ilaashan lahaayeen waxyaabaha deegaanka ku keeni kara nabaad guurka inkastoo dawlad iyo shicibba si wada jir ay ugu midaysan yihiin mowqifka ilaalinta xaalufinta dhirta ayaa waxaa haddana xusid mudan Carab Diiriye Warsame oo kamid ah bulshada ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo ah shakhsiyaad iskiis kugu xilqaamay ilaalinta deegaanka kaasi oo hawlgal tiro badan oo ku saabsan ilaalinta xaalufinta dhirta ka fuliyay deegaano hoos yimaada gobolka Awdal isagoona bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolkani Awdal u soo bandhiga barnaamijyo wacyigelin oo ku saabsan ahmiyadda ay leedahay dhirtu isla markaasina geed dheer iyo geed gaabanba u fulinta qorshayaashiisa ku saabsan ololaha la dagaalanka xaalufinta dhirta Carab Diiriye Warsame oo wareysi gaar ah ku siinayay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama ayaa waxa uu ku xog waramay sababta ku dhalisay arintani iyo waxyaabaha uu ku saleysan yahay waxana uu ku tilmaamay markii aan arkay deegaanka dhibaatada haysata oo ay ka mid tahay dhuxusha kala sheegashada dhulka ayaa waxaan sameeyay in aan dadaal u galo sidii aan uga shaqayn lahaa deegaanka muddo 3 bilood ayaa waxaan tabarucaad kaga shaqaynayay deegaanka Olbaki maalintii ugu horeysay inkastoo markii horeba cabashooyin badan maqli jiray oo la isku dili jiray oo markasta dhaawac la keeni jiray dhakhtarka markii ugu horeysay xanuunka ugu horeysay aan dareemay waxay ahayd anagoo degan deegaanka Olbaki maalmaha kamid ah ayaan halkan ka socoteeyay oo tagay deegaanka Olbaki waxaan la kulmay niman dhuxushidaaya oo 2 nin kabacdi waan u yar fiirsaday waxaan arkay labadii nin mid intuu geedkii jaray uu gooyay jiridii ku hadhay xididkeegii haddana faqayo raacay markaas ayaan ku wada walaal bal geedkii waa wad goysay bal maxay ahayd intan yar jirida baldaa inay maxay ahayd fiil yeelato madaynayo 2 mijood jaada ay ga filan tahay abuu yiri markaasaan 2 mijood jaadkii aanu siiyay sidaas ayaan maxay ahayd jiridii yareed kaga badbaadiyay sidii waxaan go'aan ku gaaray inaan tabarucaad ugu galo deegaanka oo aan jeebkayga isticmaalo sidii aan deegaanka dhirta iyo dadka u kala badbaadin lahaa xoolahana ay u helaan dhul daaqsima hatta xoolaha meel ay u arooraan oo dooxyada guudyadeeda ma jiro waa laga wada xidhay galnay muddo 7 maalmood ah ayaan gud u saarnay 7 maalmood habeenba meel ayaa loo hooyanayay kadib inta badan masaariiftooda 7 gudida ana bixin jiray mas'uuliyiinta gobolka way nala shaqaynayeen ficil ahaan laakiin run ahaantii waxa loo baahan yahay in dadka lagu maamulo dhaqaalo aad hesho aad ku maamusho moogtahay waan kala kulmay oo markasta waxay igu oran jireen adigu mishaar baad qaataa anna run ahaantii wax mishaar deegaanka ma qaato laakiin kaliya hata waxaan ka damqaday xanuunka iyo dhibta haysa deegaanka iyo dhirta sida loo jaraayo intaas ayaan ka damqaday walaal waxa weeyaan dadka laftooda waxaan ku wacyigelinaynaa horta risqa Ilaahay baa bixiya marka hore dhirtu waa nolosheena dhirta hadii la waayo xoolana ma jirayaan iminka waxaan garanayaa anuu dhowr iyo 10 sano waxaan ka tirsanaa miyiga iyo magaalada labadaba nin kastaaba dhowr iyo 10 sano sanadihii u horeeyay xoolaha u lahaa maanta male haddana dhuxul washtaa markii deegaankii dhintay ee dhulkii xooluhu daaqayna ay dhinteen xoolihiina way yaraadeen mar haddii geeduhu dhammaadaan xooluhuna way dhammaanayaan laakiin walaal risqa Ilaahay baa bixiya waxaan se ugu baaqaa had iyo jeer dadkaasi in ay risqa Ilaahay badayahay helina doonaan waxay kaga maarmaan geedahana ay daayaan waxaan halkan ka cadeynayaa xataa in aan sii wadi doono ilaa inta aan hayo aan ku dhameeyo sidii dadkuna u walaaloobi lahaa Carab Diiriye Warsame oo gunta u xidhay ilaalinta deegaanka isla markaasina buuriya banaanba u maray irgelinta qorshayaashiisa ayaa waxa uu sidoo kale kulan la qaatay bahda wasaaradda deegaanka oo uu hogaaminayo suduwii hore wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Awdal Daahir Axmed Qolombi iyagoona isla meel dhigay midnimada xaalufinta dhirta ayaa waxay si degdeg ah kormeer indhayn ugu bixeen deegaanka Olbaki ee degmada Baki ee ka tirsan gobolka Awdal waftigan ballaaran oo ay hogaaminayeen maamulka gobolka Awdal degmada
Baki isku duwii hore wasaaradda deegaanka Daahir Axmed Qolombi iyagoona bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanadaasi kula dardaarmay arrin muran dhalisay oo ku saabsan dhul daaqsimeedka buuraleyda oo ay kala sumadaysteen dadka deegaanadaasi madaxdani ayaa sidoo kale madashani ay kula dardaarmayeen bulshada ayaa waxay sidoo kale abaalmarino ku guddoonsiiyeen Carab Diiriye Warsame iyagoona maamulka gobolka degmada Baki iyo isuduwii hore wasaaradda deegaanku ay dhammaantoodba ka markhaati kaceen ololaha muuqda ee Carab Diiriye Warsame ka wada deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal waxaan leenahay nin halkan fadhiyo Carab leeyahay shahaadada raggalsiin ku jira shahaadada wax ka weyn buu mudan yahay in la siiyo dawladda dhaxana iyo madaxtooyada waxaan ka codsanaynaa ninka nooca u shaqeeya dadka ula shaqeeya ee uu naxad dadkiisa iyo deegaankiisa inuu yani la ogaado shahaadooyin heer qaran la siiyo on codsanayna iyo cidii la midaba Carab oo kale iyo cidii la midaba waxaan ka fariin uga dirayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenka qaranka inay arrintan aad u fiirsadaan oo eegaan waayo hawl weyn baa meesha ka dhacday maanta inanka Carab markuu hadlay waan qiirooday damiirkii baa ka hadliyay buurba waxaanu gaarnay heeraan buuraha kala seerano xoolihii u baahan ayaa la yeerinaya imika tusaale ahaan buu soo qaaday Carab wuxuu yiri awr baad arkaysaa isagoo meeshaada agteedii daaqaya wad ka caymadinaysaa suu meelaha dheer baad geynaysaa suu dib ugu soo noqon waxa laga yaabaa inuu waraaba cuno awrka dambi baad ka gashay qofkii neef ka lahaa Carab Diiriye Warsame oo dhiirigelin iyo garab joog kala kulmay mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka ayaa waxa uu sidoo kale isuduwii hore wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Daahir Axmed Qolombi uu diray tababar wasiirka wasaaradda deegaanka Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ay ka furtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland tababarkaasi oo lagaga hadlayay sidii la iskaga kaashan lahaa ilaalinta deegaanka oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday guud ahaan dalka Soomaaliland halkaas oo ay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ay abaalmarin ku guddoonsiisay Carab Diiriye Warsame oo ah shakhsiyaad iskiis ku xilqaamay ilaalinta deegaanka intaasi kadib Carab Diiriye Warsame oo ka qayb galay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen isuduwii hore wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Awdal iyo isuduwii cusba ee dhawaan loo soo magacaabay Xuseen Cismaan Warsame ayaa waxa uu madashaasi oo goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cabdirasaaq Jaamac Nuur ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo isugu jirta hadallo soo dhaweyn iyo sabootin ku saabsan labadaasi isuduwee ee xilka la kala wareegaya iyo carqaladaha hortaagan ololaha xaalufinta dhirta ayaa waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in maamulka cusub la shaqeeyo anagu runaantii waxaan nahay dadkii sida iskood uga shaqeyn jiray deegaanka inta badan baadiyaha walaal deegaanku aad buu runaantii u dhibaataysan yahay dhibta ugu xun wax uun haysatayna waa deegaanka fogaad waxaan ka codsanayaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka sida ay imka u shaqeynayaan khaasatan uu la shaqeynaya isku duwaa guud ee gobolka ila noola shaqeeyo ugu dambeyntii Carab Diiriye Warsame oo astaan u noqday ololaha ilaalinta nabad guurka deegaanka ayaa waxa uu sidoo kale sii watay hawlgalladiisa ku aadanaa waxqabadka deegaanka ayaa waxa uu sidoo kale kulana la soo qaatay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal isagoona kula dardaarmay waxtarka ay leedahay dhirtu sidoo kalena ku tilmaamay in ay tahay meel la wada leeyahay dhul daaqsimeedka buuruhu waxana uu yiri halkan uga dardaarmaya deegaanka walaalayaal buurta buur iyo beer waa kala laba buurtu waxa loogu talagalay in ay ku noolaadaan xooluhu haday shin tahay iyo haday ari tahayba hadii xoolaha loo diido oo buurta loo diido xoolo way naga dhamaanayaan nolosheena kale haata haysanaana waa xoolaha waxaba ka sii daran hadii geedkii la jaro xataa isaguna waa dhib ka sii weyn weeyaan waxaanan leeyahay si ay dhuxushu u yaraato oo dhuxusha loo yareeyo isticmaalkeega waxaan ugu baaqayaa in gaaska laga dhigo qiimo jaban waxa halkan baaq uga dirayaa 60kii dhalinyaro ahaa ama 80kii dhalinyaro ahaa ee laga qaaday gobolada Soomaaliland ee loo soo tababaray inay deegaanka ka shaqeeyaan waxaan ugu baaqayaa in ay deegaanka sideedii loogu soo tababaray uga shaqeeyaan gobol kasta oo ay joogaan ay ka shaqeeyaan oo deegaanka u baxaan